فريا دمان دولة بنتلان حالات كستا أو كسو وجهده ولا له هذا لاسعانود إن يسن حكرش الآن يسن كان نقول وبرول بقرب استاجع وحن قالوا كبورنا يا استمادا قبل داس أو استاجع دت كذا مديي كلمة دودا مديي عدود دودا كيف فكر مستقبل كذا واجب كاس وين صارن إنه إلهي أفضيه إنه سهله إن أي مقالة داس كسر نقطة نبتجلية دي يدقنا شهيدي عد والبو كشقين سنة وحن إلهي يقول رجينا يا إنه هل ده أفضيه سيدو كلا وحن كل ترين لها ما ملك الصومالي الله ضلكن يدتكن الله إسبضي ودرس وأهل وإسدلين تاريخ ذا ينجح ماني تاريخ ذا ينجح ماني وحي الشلي أكدي ديدين وأرني يسين ونلقسو الدولي فعل كذي مثل ما تحدث ما يسان عيب ينقطع ولي وإن لا أهل ما حد لنا وحن رجينا إنا ولي وحش كل هرتان ودبوا في رستان مستقبل كينا ضد كان كلا تجي مايو درس جوكتان هانين waxaan soo sii sheegayaa dadku marna waa maamulo marna waa beelo ku celcelinta Puntland ogaada Puntland dadka degaa iyo laascaano dadka degaa waa isku dad waana ahad marna ma noqonayaan dad kala go'ah dulmina isugu dul qaadan maayaan midba midka kala garabkiisa weeye hadda dood ka duwan doodaha qabtaan ehelnimada ah waa laga wada hadli doonaa waxaan kaloo jecelahay in halka fariin uga diro maadaama fursad tahay dawladda federaalka ah mas'uuliyadii ka saarneyd laascaanood iyo sool way gabtay uma dhaqmin sidii dawlad Soomaaliyeed gacanta u laaban waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalka badbaadiisa qayb ka ahaato iyadoo dhiig dhacayo oo dadkii la leynayo hadalkeeda ugu horeeya waxa ay sidii dhiig u joojin lahayd oo nabadda u sugan lahayd inay gardarro garab uga dhigto Soomaaliland oo tiraado wada hadal baa in la furanayo xaaladda Soomaaliland baa ergi u magacaabeena arrin dawladda Soomaaliya ku gaftay arrin sax ah ma ahayn xilli laga hadlana ma ahayn markay caga dhigato waxa Soomaaliland la yiraahdo markaas la hadli doonaa sool iyo sanaag iyo cayn Soomaaliland kama mid aha waa warcad warkaas in la cadeeyo u baahan yahay marka la isku waafaqo ayaa la wada hadli karaa laakiin inta hargeysa ay aaminsan tahay inay xoog laascaanood ku xukumayso waqtiga yaan la iska dhumin ergigana yaa waqtiga laga dhumin dalka iyo dadkana yaan dib loo celin waxaa runtii sharaf weyn ah inaan halka hambalyo uga diro dadweynaha reer laascaanood gaar ahaan jamaahiirta u istaagtay inay xaqooda ilaaliyaan oo dhowraan sharaftooda waxaan si gaar ah rabaa inaan u xuso dowrka ragga ee difaaca dagaankooda ka sokow gabdhaha iyo meediyaha garab istaagay magaalada laascaanood runtii daraawiishtu waxay mudan tahay ammaan maanta waxaan si gaar u ammaanayaa gabdho meediyaha qabsaday oo ugu horeyso raxmayari iyo fahiimo qooje oo runtii muujiyay dagaal joogto ah inay dadkooda ku difaacaan iyo afkooda kabtan ayuubi inta la halmaasha waxaan se oran lahaa dhalinyarada meediyaha ka hadasha xoogaa asbuubtana ha ku daran meelaha qaarkood dadku waa ahel la kala tagi mayo laakiin haddii la isku xadgudbo in la iska dhiciyo waa waajib bay la tahay